waxaa lagama maarmaan ah inay maalintaasi kuu timaado, maalintaas oo ay dad badan ka tagi doonaan garbahaaga. waxaa kaa dheeraanaya saaxiibkaa, waxaana kaa haajiraya kaa jecelay, xitaa waxaa kaa fogaanaya qofkaad u sheegan jirtay xanuunadaada iyo murugooyinkaaga. si lama filaan ahna caalamkoo dhan ayaa lid kugu noqonaya, wax walbana way kugu adkaanayaan. laakiin walaalkayow ama walaashayay waxaad ogaataa, haddii ay wax walba lid kugu noqdaan, raxmadda allah sareeya keligeed ayaa la jirkaaga ahaanaysa. intaasi ayaana kugu filan. qofkuu doona ha ahaadee, qofna nafsadaada ha ku qasbin. qof aanan ku rabin haska gadin oo ha ku qasbin in uu ku jeclaado. qof kasta oo aad jeceshahay micnaheedu ma ahan inuu isagana ku jecel yahay. qalbigaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xir. haddii ay murugtaadu darnaato, ogow inuu allah subxaanahu wa tacaala kuu dhow yahay. alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومعنى هذا يهي حديك ورسل النبي وأدومض حقيقة أنيق واندوحي وأنا أجيب بريض مرك أي بريان هاي مقلن إيقنا حنائر ما ينسي أي أهلونان